cabdirasaaq maxamed xasan oo ah afhayeenka guddigii 33 ahaa ee loo xilsaaray xaaladda magaalada Laascaanood intii la qaban qaabinayay shirweynihii ismadu ay isku yimaadeen ilaa iyo haddana shaqadaasi wada ayaa khadka telefoonka Laascaanood ku jira. cabdirasaaq waxaad iga warantaa Somaliland waxa ay ku dhawaaqday goordhow oo ay sii daysay inay dhankeeda ku dhawaaqday xabad bilaa shuruud ah oo nabadda iyo deganaanshaha si loo xaqiijiyo. idinku maxaad kaga jawaabaysaan warka ay Somaliland ku dhawaaqday? anagu waxaan kaga jawaabaynaa anagu mar walba waxaanu nahay dad dulmana oo lagu soo duulay 15 sanadoodna ay ku socotay dil iyo dhaawac iyo barakicin iyo tahriib ummadda Soomaaliyeed ee kale laga tahriibiyo gobolka oo dadkii magaalada ama indhaha u ahaa ama baayac mushtarka ugu badan ahaa oo dad Soomaaliyeed laga tarxeelo magaalada sidii ay joogaan wadamo shisheeye marka anagu dadka noocaas aan nahay baaqan ay soo saareen hadeer run ahaantii nabadgelyadu way fiican tahay anaguna in badan wada jir ah loo wada noolaado laakiin way suurtoobi weyday taasi oo waxay ka suurtoobi weyday dhinaca maamulkaas isaga ah bay ka suurtoobi weyday baaqan had dhibaatadan dhacday hadeer oo ay kaga jooyleeyeen nabadgelyada ay sheegeen oo ay ka hadlayaan ninka isagu wada nabadgelyada oo nabadgelyada doonaya waa inuusan duulaan ahayn hadduu duulaan yahayna waa inuu furiyaa muxuu ahaa dee shuruudaha ay leedahay waxay hadda odayaashu sheegeen inay intaasoo jeer nabadgelyo ku baaqeen haddana mar walba ay soo qaadayeen weerar iyo duulaan soo qaadayeen waxay kaloo sheegeen inay wax tacsiyadeynayaan anigu weligay ma maqal intuu ninkii dilay haddana u tacsiyadeynaya waa arrin cusub weeye oo dhacdo cusub hadda ay keeneen weeye marka anagu nabadgelyada anaga haddana inoogu jiro laakiin dee sida nabadgelyo ku suurtoobi mayso. maxaad ula jeedaa sida nabadgelyo ku suuroobi mayso? caawa saakay ka tageen Laascaanood ka tageen aynabay ka hadleen caawa haddii ay nabadgelyo iyo wanaag doonayaan dee waxay ahayd intii ay Laascaanood agteeda joogaan inay nabadgelyada ku baaqaan kana shaqeeyaan maanta ku shan waxay intaas soo wadeen duulaan ay doonayaan inay magaalada ku qabsadaan marka dee ma muuqato nabadgelyo waxaana u arkayaa anigu inay tahay inay ku banaysanayaan inay weerar cusub birita soo qaadaan iyagoo raba inay yiraahdaan xalay baanu nabadgelyo ku dhawaaqnay saakana waana la soo weeraray inta lagu banaysanayo laakiin caaqil iyaga waxay rabaan waa wax kale laakiin waxa ay ku dhawaaqeen aan ognahay anaga waa in nabad xabad joojin hal dhinaca oo bila shuruudo inay ku dhawaaqeen idinku sidaas oo kale ma ku baaqaysaan nabad iyo in xabadda la joojiyo oo bila shuruuda? anigu shuruud markii aan kulannay oo ugu horeysay waxaanu u sheegnay oo hadalka iyagu ahaa nabad baanu doonaynaa laakiin sida nabadda lagu heli karaa waxa weeye in ciidankan dul saaran nalaga dul qaado lana joojiyo weerarka iyo duulaanka tiina may sameeyeen waxay ku bedeleen weerar toos ah oo aan loo aaba yeelin haba yaraatee cidna loo aaba yeelin wixii hore marka laga tago hadda falaalug haddan ka hadlayna caaqil wixii hore ma aha hadda nabad bay ku baaqeen hadda idinku nabadaas ma ku baaqaysaan? annagu waxaan leeyahay nabadda diyaar baanu nahay laakiin way processkii nabadda lagu heli lahaa wayna sameeyaan. waxaad ku soo celisay inay doonayaan inay wax xalaaleystaan ereygaas aad u isticmaashay maxaad ula jeedaa xog baad haysaan dheeraado oo dadku ayna ogeyn? xog baanu haynaa xogtaanu haynaa waxa weeye in maanta la keenay hubkii cuslaa RT5kii da-sodonkii kaarayaashii beebeyaashii dhammaan intaa in la keenay lana soo geliyey magaalada koonayaasheeda. haddee awalba soo ma oolin wax dheeraada maaha soo maaha
ما waa dheeraad kuwani maanta iyo shalay baa la keenay ma ogtahay maanta ba inaad ka maarantid inaad tagto xawaalad haddii aad ku sugan tahay Yurub iyo Ameerika baysi waxa uu ka qabtirayaa inaad lacag u diri karto ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo ku sugan gurigaaga iyo goobtaada shaqada kala soo deg App Store-ka iyo Play Store-ka